الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu ku soo jirnay walaalayaal barnaamijkeeni ka waramayay hagaajinta nolosha iyo agaasimkeeda iyo ka dabatageeda. labadii xalqadood ee horena waxaynu ku soo qaadanay sida loo qaato qaraarka iyo go'aanka iyo sida nafta wax looga bedelo. waxaynu insha Allah taala xalqadan maanta qaadan doonaa markaynu go'aan qaadano aynu isbedel raadino xageenu isku bedelaynaa xageenu u soconaa maxaynu raadinaynaa sideynu doonaynaa inaynu noqono. jawaabteedu gaaban waxay tahay waxaynu doonaynaa inaynu noqono inuu helo waxa uu raadiyo cid kasta oo kamida bulshada noocyadeeda kala duwan ka yar iyo ka weyn wasiirka iyo amiirka madaxweynaha iyo ka ciidanka iyo ka aan ahayn iyo macalinka iyo faqiirka iyo taajirka rag iyo dumarba waxay raadiyaan inaynu helaynu doonaynaa. dhammaantood waxay raadiyaan waxa loo yaqaano as-sacaada waa guusha ama liibaanta ama baraaraha ama rayraynta waa lafdi koobsanaya farxad iyo wanaag adduunyo aakhiro dhanba Ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka inuu siiyo. sacaadada marka la fasirayo aaraa iyo aragtiyo kala duwan baa laga leeyahay islaam iyo gaalba. dadka qaarkood waxay ku fasiraan inay tahay itmiinaan iyo xasilooni qofka qalbigiisa gasha wanshiraaxu sadri wa raaxatul baal qofka laabtiisa furanta iyo isaga oo markastaba uu dareemo raaxo uu qalbiga ka dareemo. dadka qaarkood waxay ku fasiraan ar-ridaa bi kulli shay'in qofku inuu raali ku noqdo wax kasto Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadaro wa tanbu'u an iimaan min al-qalb waxaana ka soo bukaacda ama ay ka timaada iimaan qalbiga ku jirana keena sacaadada. dadka qaarkood waxay leeyihiin ma wahi ihsaasun bil mut'ati wal inbisaat waa qofku markasta inuu dareemo raaxo iyo faraxti markastaba qofku inuu dareemo leeyda. baynama qolo kale oo arkaan sacaadadu inay kala laba tahayo sacaada dunyawiya iyo ukhrawiya ay jirto. sacaadada dunyawiga ahina markastaba ay u tahay wadadii loo sii marayay sacaadada ukhrawiga waana sida shariicadeenu ina tusinayso way. waxaa kaloo leeyahay Ilaahay tabaaraka wa tacaala in wanaag oo dhan laga fisho iyo tafaa'ul iyo qaab wanaagsan inuu Ilaahay qofku ka fisho wax wanaagsan in Ilaahay siinay lafteeduna waa sacaado rajo ku nool u noqdo. waxa walaalayaal isweydiin la dadka kaabada iyo murugada iyo culayska iyo ciilka inta faraha badan noloshoodu ay ku salaysan tahay miyay bedeli karaan misaajkooda iyo dabeecadooda ma ka dhigi karaan dabiica saciida qof iska faraxsan oo rayn ma noqon kara qof ma isbedeli kara. haabaynu leenahay iska daa qof bani aadam oo xayawaanka xataa ayaaba hadii dabeecadooda iyo misaajkooda uu u janjeero xagga qalqalafsanaanta iyo adayga laga dhigi karaa dabiica munfatixa oo furfuran oo ku dhisan sacaado iyo faraxti iyo dabeecad wanaag. waxa uu shaacirku yiri yaa mut'ib al-jismi kam tas'a li khidmatihi at'abta jismaka fima fihi khusranu أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وحول إنك هاجن كده لا يشركيسة ونظيفنا يشركيسة كشقينا يوم وحاد كده شابوي للطبيعة هذا الطبيعة هذا وناجي الروح هذا كشقيبوي أو فضائل شيء وناجا إلى دوران أرورسه واي الروح ذا قفكو تهاي جسمي قفكو متي روح ذا أياد معنا كل هذا الصومال ذا وكوي هذا نندنتي كبيه سردامة معناها روح ذا قيمة وصمينيس قفك بنو آدم كمركا إنه الروح ذا كذب تقوم معاني ذا سعادة ذا فرحتي ذا يوحي مذا. وحي علماء إلى هذان قفك صدح شيء كل مية سعادة وكل مية فرحتي ذا الدنيا ذا ورنبا يسكوت من قفك صدح شيء لجهل. شكر على النعم وصبر على البلاء واستغفار على من الذنوب. شكر على النعم وحي لهي السرياضة النعمة قفك وصيين ومهد نقرد بتاجنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. والصبر على البلاء هديبه إلهي قفك امتحامه ودباته كهبستين وكصبروا أتكيسته. واستغفار على الذنوب ذنبك إيا شرك قفك كردعا قفك إنه إلهي دم دافك ويديستانه وأنقى إيا هلك هاي كتم هذا السعادة وصدح ذا شيء يسكو يمد. حين دوني ناني نتلمامنا وضد الله مريكا سعادة إيا قوش وضد الله مريكا انتينا وضد إذا قد قلينا وحا لويدي هورتا سعادة محي كترتها بدل لويدي نبا وحو سميي علمي بارد وبندقي 16,000 شخص 16 كن أوقف ويسوي شر النوع والبو تجار له وفقراء له وعيال له ودد واوين له ضمر له رجله يابا وحو ويدي سؤال شاء سعادة يجوش يلي بانت يا الريرانت يا فرحات وحاجة كترتها 16 كن أوقف صدّن يشم بقولك بواحد هذا واحد كترتها الحب بمعنى أن تحب وتحب إن لو تشعلاته ضمن وحشعلاته وسعادة وسلاسيله
28 boqolkiiba waxay yidhaahdeen arida qofku inuu raalli ahaado oo wax kastoo ilaahay u qadaray uu ku qanco. 17 boqolkiiba waxay yidhaahdeen asixa qofku inuu caafimaad qabo. 7 boqolkiiba 7 waxay yidhaahdeen zawaajka iyo guurka saacadadu ku jirta iyo in la guursado. boqolkiiba 16 kun ee shakhsi boqolkiiba 5 waxay yidhaahdeen xoolaha maalka ku jirta. dadka badidoodu malaha waxbay aaminsan inay maalka ku jirtee laakiin boqolkiiba 5 daraasada waxay tilmaameen saacadada iyo farxadda dhabta inay ku jirto maalka. inagu maadaama Afrika deganahay oo faqrigu inagu badan yahay waxaynu u aragnaa saacadadu inay maalka daba joogto laakiin bilcaks adduunyada dadka hantida haysta saacadadii bay raadinayaan. YouTube-ka waxa ku jira maqtac la yaab leh oo nin Britaniya iyo Ingiriis oo hanti badan haysto oo oo lacag badan haysto oo milyaneer ah ayaa qoyskiisa isku soo ururinay markaas uu leeyahay qad saimtu min alxayaa noloshan ka daalayo sunbaan cabaya oo isdilaya intixaar markaas ku dhiirigelinayaan leeyihiin dee hadda waa dhimanaysaa mid saa ogeyn waan dhimanayaa buu leeyahay si uu dhiibayaan ahalkiisa iyo ag fadhiya YouTube ku jira suntu cabaya diyadu ka dhaqaajinaya yintixir. boqolkiiba 3 waxay yiraahdeen saacadadu waxay ku jirtaa al-atfaal qofku inuu caruur yeesho caruur la qoslo. boqolkiiba 2 waxay yiraahdeen safarka iyo in adduunyada la socday ku jirtaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala boqolkiiba 100 wuxuu tilmaamay saacadada iyo faraxtidu inay ku jirto ilaahay oo la adeeco. faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa. ilaahay baa ballan qaaday qofka hanuunkayga raaca falaa yadillu fi dunya walaa yashqaa fi al-aakhirah. adduunyadana ma lumayo saacado iyo nolol dhan buu haysanaya aakhirana ma guul daraysanayo. nabiga waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku yiri taaha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa. quraanka kugumaanaan soo dejin inaad ku guul daraysato ku dhibaato ku kadeedanto macnaheedu inaad ku faraxdo oo saacado iyo rayn iyo wanaag oo dhan uu ku gayaysiiyo. ilaahay baan ku dhaartay qofka ilaahay waxyiga qalbigiisa u fura saacado iyo liibaan adduunyo iyo baraaro ka dhiman inaanu jirin. duruqda hadaba loo mari kare lagu heli kara saacadada iyo guushu waxay tahay walaalayaal wadooyin bay leedahay hadaynaan marinaynaan helay. tarju najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Abu al-Atahiya wuxuu yiri waxa doonaysaa buu inaad guul hesho wadadeedina ma maraysid dee suuragal maaha buu inay doonto ku socoto dhul qallayl oo ciida inay ku socoto suuragal ma. qodobada ugu waaweyn ee ku saxasilin kara saacadadu waa al-iimaan billahi wal amal salih. qodob weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku inuu rumeeyo amal saalix oo la yimaado man amila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. ilaahay baa wuxuu ballan qaadaya tabaaraka wa tacaala qofka amal saalix la yimaado oo laba yeeladiga inuu ilaahay noolaynayo nolol wanaagsan waa ballan ilaahay jalla jalaaluhu. cibaadada amalka saalixa shantaada salaado tahaarada tasbiixda iyo dhikriga inta hadad laasimto musxafka quraankooda u heshato saacada ka dhiman baan jirinba. الإيمان بالقضاء والقدر قفك قلبك إنه كبح مر والبوحي إلهي تبارك وتعالى وقدرين وحي كانت عينه كخفف في سآلام الحياة وسعادة وضريمه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله شو نكسن الله ما كل ميقف صبري وقضاء قدرك كصبري أو دفو المويان بإلهي سبحانه. الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى حسك إلهي والله بضي في السر والجهر والعلن. حضاد موقته هذا قرصون تهي هذا سريسية هذا مالها سجوا كتب إلهي نحس تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي وحليه هو يبرارقه وقلوبته وحيكون حسش إلهي تبارك وتعالى حسكيس. انشراح الصدر وسلامته وحكم إذا وحيابها سعادة اللي قال قفك ونقفكيس كقلبي وناكسن نقضاء وقلبي جيس نظيف والنقضان ضدك قلبك وحباك وقبنين. فمن يريد الله أن يشرح صدره أن يهديه يشرح صدره للإسلام قفك إلهي وهداية الله دون قلبي صفرا وإسلام كوفرا قلبي غفرا قلبي بغيضة هنقننا قف قلبي قدتك كحاسدة هنقننا. المهم قلبي وناق يا قلبي فرانته يا قلبي دبع سنانته وحي كمتهاي وحيابها سعادة يجوش اللي هو قال. النظر إلى من هو دونك في الأمور الدنيوية. الرماها الدنيوية مركز الشوق إن عدك هو سيصل يقول لو مشغول عندك هالسريس. arrimaha ukhrawiga ee adduunyada iyo amalkaaga saalix ee dambe ka qayb qaadanayna cid ka sarreysay inaad eegto cid ka hooseysa aanad eegin waa waxyaabaha yaani keena saacadada iyo guusha iyo baraaraha keena weey. qoladii markaa uu ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka kaga waramay reer qaaruuna jantay nicmada uu qaaruun ku fadhiyay yiri Allah baraarihiisa uu xusul doobay doonay inay gaaraan waa kuwa kale kulaha waylakum thawabullahi khayrun liman aamana wa amila salihan. qofkii amal suuban sameeya aakhiradiisa u roon
xaggaa eega aakhiradiina eega ha ku badhaadhin oo ha ku mashquulin oo ha eegina qof markaa idinka adduunyo sareeya. waxyaabaha lagaga faa'iideysanaya sacaado lagu gaarhaya waxaa ka mid ah mil'u lfiraaqi bilmufiid. qofka waqtigiisa faaruqa inuu wax u faa'iideynayo adduunya aakhiraba geliyo. waayo waxaa la yidhaahdaa qofku inuu mashquuli waayo oo uu helo waqti fakaaka waxay keentaa hami fara badan iyo fikir baa ku beera. wabilakhasi waxaa laga yaabaa tafkiirkiisa iyo fikirkiisaas inuu beero salbi oo waa kuwa yidhaahda naseexa ahaan hadduu qofku markuu sii seexanayo aanay hurdo haynin ma fiicna inuu furaashka ku degdego. waayo furaashka uu jiifo uunu marba dhan isu rogayo qofku wuxuu keenaa afkaar iyo fikiro aan qumanayn baa kusoo dhaca mararka qaarkood. culimadu waa kuwa ku naseexaya in dikri lagu buuxiyo sida nebigu ahaan jiray sala allahu caleyhi wasalam. markuu qofku jiifo hurdaduna ka raagto inuu dikri iyo xus la yimaado si fiican oo u seexanaya tafkiir salbiya iyo fikro qaldanna lama imanayo. waxyaabaha sacaadada iyo guusha inoo keenaya walaalayaal waxaa ka mid ah xadid maa yusciduka daa'iman. weligaa waxaad xadidaad bartilmaameed ka dhigataa iyo yool iyo hadaf lagu socdo waxa ku sacaado gelinaya ku faraxti gelinaya. waxaa mushkilad weyna haddaanad garanaynba wax allaaliya wax ka faraxti gelinayaba haddaad waruhayn oo intaad banaanka istaagto aad tiraaniyo wax allaaliya wax faraxti geliyaba ma yaqaan de waa musiibo weeyaan. qofku waa inuu garto maadaa yusciduhu dabeeta uu xadido ilaahay tabaaraka watacaala haddii aanu kaga go-ayna uu sameeyo oo uu ka faa'iideysto. alqiimatu almacnawiyatu ahamu min almaadiya. waxyaabaha aynu kaga faa'iideysanayno waxaa ka mid a walaalayaal inaynu dareenno qiyamka macnawiga mar kastaba ashyaada macnawiga baa waxay ka sareysaa oo ay ka badan tahay ashyaada maadiga. yacni qofku inuu ku qanco maalan inuu wax qabsan karo, inuu ku qanco inuu maskax leeyahay, inuu ku qanco inuu meel sare gaari karo, mar walba waxay ka qaalisan tahay qofku isagoo maadiyaad haysto, laptop haysto, lacag haysto, diyaarada haysta oo aan ku qanci karaynin inuu wax gaari karo, inuu wax noqon karo, inuu wax soo fulin karo. marka mar kastaba qanaacadu waa shayga ugu qaalisana isaga wax lagu gaaro. ninkii markaa ninka soo maray wuxuu ku yidhi war heedha ninkaagani waxaad ku fadhidaa un sanduuq buu ku fadhiisan jiray, sanduuqanaad ku fadhida unaad ka kacdid buuri lacag baa kuugu jirtay ninkaagan dawarsanaya. wuxuu yihi niyo 20 sanaan ku fadhiyo ku dul dawarsanaya iskida waxba kuma jiraan mee ku jiraan fur uu ku qasbay inuu furo. goortii dambe sanduuqan markaa aabihii baa uga dhintay oo faqiir ahaan jiray. markuu furay wuxuu ugu tagay lacag aad u badan ilaa lagu qiyaasay 20,000 dirham. ninkii uu qaadan waayay lacagta intan leeg uu meeshan ka helay. wuxuu yihi ninkii markaa qisatu najaax buu ka waramay oo qof kastoo adduunyada ku nooli buu yidhi wuxuu ku fadhiyaa kans iyo sanduuqa. dadka qaarna way furtaan, dadka qaarna ma furtaan. waxaan uga sii gudbayaa qodobka xiga oo ah maxaa qofka u diidaa ama sacaadada maxaa hor istaaga. sacaadadu mawaanic bay leedahay. kufriga iyo gaalnimada ka mid ah. gaalnimadu waxyaabaha ugu weyn caa'iqa ah ee qofka sacaadadii faraxtada ka hor istaaga. haddii la arko gaal faraxsan amaba qur-aanka lagu arko inahu kaana fii ahlihi masruuran adduunyada markuu joogay gaalku u faraxsanaa waa farxad aan macno sameyneynin marka la eego qofka iimaan kale sacaadada uu ku jiro. tashaa'umka iyo baasaysigaa ka mid ah. xasadka iyo khiirada qofka buuxiya. suu dhanni qof kastuu arko inuu balaayo ka malaystaa waxyaabaha qofka sacaadada u diida. alqadab qofku inuu cadhoodo, dulmi inuu galo, qish inuu sameeyo oo uu dadka khiyaameeyo, inuu noqdo qof wada tacliiq ah oo khariban oo salbiya oo cidda ka soo horbaxdaba uu qalbiga ka tacliiqiyo hada waa tawiil, hada qasiir, hada samiin, hada kada. cishqiga baalka la yidhaahdo isaguna waa waxyaabaha sacaadada hor istaaga weyn. dad badan waa tala sheegay de sida u warwarayeen inay naftaba kaga baxeen oo adduunyada kaga baxeen. kubaa gabiye gabar jeclaaday oo wuxuu yihi usalli famaa adri idaa maa dakartuha athintayni sallaytu duxa am thamaaniya araanii idaa sallaytu yamamtu naxwaha biwajhi wain kaana almusalli waraa'iya wamaa biya ishraaku walaakin uxibuha wacadmu ljawa acya abiiba almudaawiya buu yihi. wuxuu yihi waan tukanayaayo waxaanan kala garanayn talo ma 2 ragcadood baan tukaday mise 8. waa cajaayib wey. wuxuu yihi markastoo tukado gabadhii oon xagga ilaahay u jeesta gabadhii baa qalbiga kusoo dhacaysa buu yihi. waxaa la yaab leh buu yihi shirki iyo gaalnimo iguma jirto heblaayo ma caabudaye laakiin wuxuu yihi cadmu ljawa xubiga iyo kalgacaylka igu jira aawadii badidiisa ayaa acya tabiib almudaawiya kan daweynaya kaasaa daaliyay buu yihi. wuxuu kusoo gabagabeeyey intuu isagoo daalan oo sii dhimanaya wayaa rabbi laa taslubnii xubaha abadan warxam illaahu cabdan waarxam allaahu cabdan qaala aamiina kulah. ilaahayow qalbigayga ha ka saarin gabadhaa heblaaya jacaylka aan jecela. ilaahayow waxaad igu dishaa sidaasoo qof kastoo aamiin ii yidhaahdana ilaah u naxariisa kula anoo sidaa u jecel inaan dhinto. haadaa waxaa la odhan karaa waxyaabaha ugu waaweyn ee sacaadada iyo liibaanta iyo reereynta qofka ka hor istaagi kara. bilmukhtasar almufiid
مركان صادو دوبنا وحلا أوران كرا موانع السعادة 3 الهم والحزن والأرق مرugada iyo hamiga iyo saamaleelka bahalka la dhaahbeen kiyeen badan la soo jeeda waa waxyaabaha saacadada iyo faraxtida hor istaaga guntiga gabagabadii waxa la yiri saacadada la sheekaysto geed lagu hoos casuumo waxa la yiri saacado xagga degtaa waxay tahay waxaan dagaa fi quluub ar-raadin al-mu'minin dadka mu'miniinta qalbigooda dagaa waxa lagu yiri fabima tataqaddim maxaad quudataa qaalad waxay tahay min quwwati iimaanihim iimaankooga quwadiisa iyo awoodda uu leeyahay baan quutaa waxaa lagu yiri maxaad ku daa'imtaayad ku joogtaa bixusni tadbiirihim betr mu'miniintu qaabka hadba ay maamulaan si fiican igu taliyaan fabima tustajlabin hadad maqan tahay oo cid ku haysanin maxay kugu soo jiidan karaan qaalat an ta'lama an-nafsu inay naftu ogaato baytri alla yusibaha illa ma kataba Allah laha inay naftu ogaato inaanu ku dhacaynin wax Ilaahay tabaaraka wa ta'ala u qoray mooyaan wa an yashma al-hawa wa tashruq alayhi shamsun waxa la igu soo jiitaa baytri qofka insaanka inuu hawadana u baxo cadceeduna qabato hadduu qofku cadceed daarki waayo albaab hoosta ka xidhoogaada hadduu hawada naqliga u bixi waayo guri uun ku jiro akiid saacado ma arka kaasi maxaad ku tagtaabaa la weydiiyay marka gabagabada maxaad naga dhaqaajinaysaa waxay tiri bitamaci bacda alqanaaca intii ilaahay qanaaca kugu arsaaqay kadib inaad damaac noqoto waan ku tagaa adduunya damaaciyo ku dubaa la wacay wabilxirsi bacda samaa bacda samaaxa qofku intuu saamix ahaayo wax uu helana aan ku wareerin wuxuu waayana aan ku wareerin inuu noqdo qof adduunyada nafta iskaga jira wabilhami bacda surur qofku intuu faraxsanaa kadib inuu hami ka daba geeyo wabishaki bacda alyaqiin intuu ahaa qof yaqiin leh oo deganna inuu dabadeed noqdo qof shakuuk miidhan oo wada shakiyana waan ku tagaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu arsaaqo sacaadada iyo faraxtida adduunyadu waa afar cisho aakhiraduna waa afar cisho labadaba ilaahay inooga dhigo sacaada rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi